taageerayaasha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ku dhaqan degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle oo maanta isugu soo baxay jidadka waaweyn ee halbowlaha ah degmada Qorlugud ayaa taageero mug iyo miisaan lagu muujiyay xisbiga muxaafadka ee kulmiye boqolaalkan taageerayaasha oo ku labisnaa calanka xisbiga kulmiye isla markaana ku dhawaaqayay hadallo yeeray ay ku taageersan yihiin musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Bihi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ayaa ugu dambeyntii isugu soo biyashubtay goob fagaara waxaana ugu horreyn baa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Raangis gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud xubno ka mid ah haweenka degmada Qorlugud iyo taageerayaal kale oo aad u tiro badan waxayna dhammaantoodba sheegeen in xisbiga kulmiye taageero ballaaran looga hayo degmada Qorlugud iyo deegaamada hoos yimaada kumanaan baa soo baxay oo isugu soo baxay degmada Qorlugud taageerayaasha xisbiga kulmiye waad aragtaan kumanaan baa soo baxay waa maalinteeni waxaanu taageeraynaa insha Allah ta'ala xuduudeena muujinayna xisbiga kulmiye uu ku leeyahay degmada Qorlugud waad aragtaan cid kale wax u yaalaan ma jirto waxaanu sheegaynaa in shacabka degmada Qorlugud iyo bahweynta xisbiga kulmiye dhammaan ay degmada Qorlugud tahay xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha mudane Muuse Bihi Cabdi Allah inagu guuleeyo Allah waxaynu ka baryeena isaga xulo wax nin xulo baynu ilaahay ka baryay anagu Muuse Bihi baanu jecelahay ilaa mid guulaysan nooga dhig baanu taageeraynaa taageeradayada u muujinaynaa qalbigayagu ku xidhan yahay niyadayadu ku xidhan yahay waa waal gudaynaa hadalaan dhaafay waxaaneeya mooyee haddii hadal baa loo keenay waa inaynu hiil muujinaa hagar la'aaneede xisbiga kulmiye ha guulaysto nin ilaahay yaqaaniyo muusaan wadnaay ayadoo nala raac waddadaa ha halmaamin walaal ku coday wakhtigeeda ballannay maalintii halkan inooga yimi waynaga halkan muuse kula ballannay ballankii aynu reer Qorlugud u qaadnay Muuse Bihi Cabdi waa garanaysaan halkaa waa kii aynu ballankii yaa laynaga waayin reer Qorlugudow kulmiye halkan wuu joogaa kulmiye wixii maqanna waxaan leeyahay yaa laydinka waayin ballankii aynu u qaadnay kulmiye reer Qorlugud yaa laydinka waayin waxaan leeyahay nimanka ka hadlay xalayto ka hadlay Burco dadku wuu is yaqaanaa runtii ma bentelaan beesha Solomadow beeshu waxay leedahay beeshu caaqilay leedahay odayaal dhaqameeday leedahay waxay leedahay maxay ahayto wax garad bay leedahay ganacsatay leedahay xildhibaanay leedahay wax siyaasiyiin bay leedahay siyaasiyiinta Soomaaliya lagu sarreysay leedahay beesha Solomadow waxay leedahay siyaasiyiinta Soomaaliya lagu sarreysa nimankaas lama metelaan wax jirana maaha waa niman meelaha maaragtay iska quraanjeysanayo oo maxay iska u darxuma arintaa u geysay waxaan leeyahay arintaa waxba kama jiraan darxuma u geysay waxaan leenahay xisbiga kulmiye waa kelmad yar baan ku soo gunaanadayaa waxaan u sheegayaa kelmadan xisbiyada kale leeyahay waxa layluguba marka la raro lama legdoodaaye hawlagoyna meel bay labini taalaaye hawlagoyna meel bay labini taal Salabaan Cilmi Siciid Salabaan Kiiko wararka Star TV Aynaba